kulanti wacan daawadayaal halkan waa Juba TV ku soo dhawaada warka Juba TV aniga Sayid Axmed ayaa idin aqrin doona qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah madaxweyne Xasan Sheekh oo kulan muhiim ah la qaatay xogayaha guud ee qaramada midoobay kulan loogu duceynaya dadkii waxyeelada ka soo gaartay qaraxyadii Soobato oo lagu qabtay Muqdisho wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya oo kulan la yeeshay dhigiisa Suudaan ganacsiga Soomaaliyeed iyo wasaaradda ganacsiga oo $1 milyan uga deeqay dadkii ku waxyeeloway qaraxyadii 29 ka dhacay Muqdisho wasaaradda gaadiidka oo $26,000 ku wareejisay guddiga gurmadka qaraxyadii Soobato maamul galmudug oo tababar ku saabsan ka shaqaynta nabadda u furay dhalinyarada galmudug wasaaradda lacagta ee dalka Mareykanka wuxuuna qabatay saartay xubno ka tirsan ururka Daacish ee Soomaaliya gudoomiyaha hay'adda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka oo dawladda ka codsaday in la kordhiyo goobaha gurmadka degdega dawladaha Turkiga iyo Djibouti oo gurmad caafimaad u soo diray Muqdisho akhbaaraadka dibaddana waxaa kamid ah Kuuriyada Waqooyi iyo Kuuriyada Koonfureed oo markii ugu horeysay gantaalo soo adeegsaday Sacuudiga oo Mareykanka la wadaagay xogta weerarka soo wajahan kuwaas waxay ahaayeen qodobada warkeena ugu door karoon iminkana u diyaar garooba iyagii oo faahfaahsan soo noqod wanaagsan daawadayaal madaxweyne Xasan Sheekh ayaa kulan muhiim ah la qaatay xogayaha guud ee qaramada midoobay faafahinta warkaas waxa inoo haya wariyahayaga Maxamed Ibrahim madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka qayb galay furitaanka meertada 31aad ee shir madaxeedka ururada jaamacadda Carabta oo ka furmay magaalada Algiers ee caasimadda dalka Algeria madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa shirkaani ka jeedin doona khudbad uu kaga hadlayay dhibaatooyinka ay waxa loogu yeeray argagixisada ku hayso nabadda Soomaaliya horumarka iyo dawladnimada Soomaaliya iyo sidoo kale guulaha dawladda iyo shacabka oo wada jira ay ku xaqiijiyeen amniga deegaano badan oo horay gacanta ugu jiray Al-Shabaab dhanka kale madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dalka Algeria waxa uu kulan kula qaatay xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres isaga oo kala hadlay dagaalka dawladda ay kula jirto Al-Shabaab iyo muhiimadda ay leedahay taageerada beesha caalamka si loo soo afjaro dagaalka madaxweynaha ayaa xogayaha guud ee qaramada midoobay la wadaagay horumarada ay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya shacabka ay ka sameeyeen dagaalka ka dhanka Al-Shabaab waxa uu xusay in cunaqabataynta hubka oo laga qaado Soomaaliya ay si weyn u caawinayso ciidanka xoogga dalka madaxweynaha jamhuuriyadda oo tilmaamay in dawladdiisa ay ka go'an tahay dagaalka ay kula jirto Al-Shabaab ayaa qaramada midoobay ka codsaday in ay sii kordhiso taageerada bini'aadanimo iyo tan farsamo ee ay siiyaan dawladda Soomaaliya si loo xaqiijiyo kalsoonida dalka iyo in ciidanka Soomaaliyeed ay la wareegaan kuna filnaadaan ammaanka dalka xogayaha qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa bogaadiyay sida dawladda dhexe iyo dawladaha xubnaha ka ah ay ugu midaysan yihiin ammaanka dalka iyo dhamaystirka dawlad dhiska Soomaaliya isagoo intaas ku daray in qaramada midoobay ay Soomaaliya ka taageerayso dagaalka Al-Shabaab qiyaynta ciidanka qalabka sida iyo arrimaha la xiriira isbeddelka cimilada iyo deegaanka madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu dambeyn u mahadceliyay qaramada midoobay taageerada ay siiyaan dawladda federaalka Soomaaliya waxa uu adkeeyay in ay sii wadaan garab istaaga ay dalka iyo dadka Soomaaliyeed u muujiyeen madaxweynaha ayaa intuu ku sugan yahay Algeria waxa uu kulan duceeda la yeelan doonaa madaxda dalalka Carabta hoggaanka hay'adaha iyo ururada caalamiga ah ee ka soo qayb galay meertadan madaxweynaha waxa ku wehelinayay shirkan wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Abshir Umar Hurushe wasiirka wasaaradda maaliyadda Dr. Cilmi Maxamed Nuur safiirka Soomaaliya ee dalka Masar ahna wakiilka Soomaaliya ee ururka jaamacadda Carabta Danjire Ilyas Sheekh Umar Abubakar iyo safiirka Soomaaliya ee dalka Algeria Abdi Wahab Macalin Maxamed kulan loogu duceynayay dadka ay waxyeelada ka soo gaartay qaraxyadii Soobato ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho faafahinta warkaas waxa inoo haya wariyahayaga Cabdi Xasan Durdur wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya
ayaa kulan duco iyo xusuus ah ku qabatay magaalada Muqdisho kaas oo loogu duceynayay muwaadiniintii waxyeelada ka soo gaartay qaraxyadii 29 Oktoobar ka dhacay magaalada Muqdisho. wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Axmed Macalin Fiqi ayaa ka warmay doorka wasaaradda ee qabanqaabada kulankan iyo ujeedka ay ka leeyihiin. waxaan rabaa marka koowaad inaan ka mahad celiyo qabanqaabada tiimkii qabanqaabada munaasabadan soo qabanqaabiyey lagu xusayo lagu duceynayo dadkii Soomaaliyeed ee walaalahayna ahaa khawaarijtu ay ku xasuuqday iskoyska Zobe kuwii hantidoodu ay ku burburtay kuwii ku dhaawacmay kuwii ku dhintay kuwii ku agoontoobay kuwii rajada ku noqday kuwii maaragtay murugada ay soo waajahday ayagoo faraxsan oo qoysas badan dadka noocaas oo tirada badan oo waxba galabsan oo goob dagaal aan joogin oo aan hubaysnayn oo aan maaragtay xataa haddii la dhihi lahaa dadkii dirirayay way aan dirirayn oo si nabadgelyo ah goobahoodii shaqada iyo dhulkoodii u socday dadka kuwaas ayadoo waliba nimanka khawaarijta ay furimo badan oo ay ka diriri karaan ay u furan yihiin maanta fariin cad baa loo dirayaa wasaaradda arrimaha gudaha u diraysaa oo ah in halganka socda aan taageersannahay in aan ka soo horjeedno fikirka qowlka ficilka kooxdaas khawaarijta in dhidid iyo dhiig aan u hurayno dalkeenna iyo inaanan u baqayn oo ka cabsanayn ayay taa fariinta la dirayo waana sii wadaynaa waana sii soconaysaa qof walba dalkan mas-uuliyad baa ka saaran ka sokow inuu wasaaraddu u shaqeeyo ama yuusan u shaqayn qof walba mas-uuliyad baa ka saaran wixii amniga dhibaato u geysanaya hala soo wargeliyo adiga lagu sheegi maayo haddaa is leedahay waa lagu sheegayaa kulligeen askar baan wada noqonaynaa marka sida dadka Soomaaliyeed oo dhan oo Muqdisho degan iyo kuwa caasimadaha degan kuwan Buulo Barde ku soo aragnay runtii dal lagu faanay ahaayeen Buulo Barde maalin loo aan tagnay Sabtidii nin askariya nin baa la sheegay hubaysan oo 20 kiiloomitir meel ah kaligii socda waa la arkay bulshadii baa soo sheegtay reer miyiga waa lagu baxay nin askari uu noqday oo reerkiisu u socda feejignaan meesha ay ka leegtahay meesha ay ka marayso dadkaas waa u jeedaan wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya ayaa kulan la yeeshay dhigiisa Suudaan faafahinta warkaas waxa inoo haya wariyahayaga Maxamed Ibraahim wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur ayaa booqasho uu ku joogay dalka Suudaan waxa uu kula kulmay dhigiisa dalkaasi Yaasiin Ibraahim Yaasiin labada wasiir ayaa ka wada hadlay sidii loo xoojin lahaa xiriirka iskaashiga dhanka ciidamada ee ka dhaxeeya labada dal safiirka Soomaaliya u fadhiya Suudaan Maxamed Sheekh Isxaaq ayaa ka warbixiyay waxyaabihii la isku afgartay inta uu kulanka socday waxa uu maanta kulan la yeeshay dhigiisa wasiirka gaashaandhigga ee jamhuuriyadda dawladda aan walaalahanahay ee Suudaan kulankaasi wuxuu quseeyay xoojinta iyo xiriirka labada dal oo walaalaha iyo si alaale sidii oo tacaawun iyo iskaashi looga sameyn lahaa arrimaha quseeya labada wasaaradood ee gaashaandhigga iyo howlaha khuseeya amniga sidoo kale wasiirka wuxuu la kulmay taliyaha sare ee ciidanka jamhuuriyadda dawladda Suudaan iyo saraakiil kale oo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ganacsatada Soomaaliyeed iyo wasaaradda ganacsiga ayaa 1 milyan oo dollar ugu deeqay dadkii waxyeeladu ka soo gaartay qaraxii 29 Oktoobar ka dhacay Muqdisho faafahinta warkaas waxa inoo haya wariyahayaga Cabdi Xasan Durdur wasiirka wasaaradda ganacsiga ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cabdirashiid Jibriil ayaa xarunta qaran ee degdega ah ee hay'adda maareynta musiibooyinka soo gaarsiiyay lacag ka badan 1 milyan oo dollarka Mareykanka ah wasiirka ayaa sheegay in lacagtan ay iska soo aruuriyeen ganacsatada dalka iyo shaqaalaha wasaaraddaasi isagoo oo ganacsatada ugu digay in ay lacag siiyaan al-shabaab waxaan maanta soo booqanay xarunta gargaarka xamarweyne tabarucaad lagu aruurinayaan soo booqanay waxaan rabnaa inaan markii hore halkaan uga duceeyno intii dhimatay Ilaahay inuu u naxariisto intii dhaawacana Ilaahay inuu u boogadhayo dabcan jadwalkeena caadiga ah aan ku soconaa ee tabarucaadda ahaa oo annagoo wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha saddex qayb baan kala ahaynoo
hadda shaqaalaha wasaaradda oo tabarucaad yar laga soo aruuriyey iyaan wadnaa iyo dabcan lacagtii weyneedoona laga filayey ee ganacsatada marka ilaahay mahadiis waaye waana uga mahad celinaynaa runtii ganacsatada inay ku yabooheen lacag $1 milyan inay ugu yabooheen sanduuqan maxay ahayd tabarucaadda inay ugu yabooheen waa uga mahad celinaynaa balse waxaan leeyahay kuma filno inay waxaan rabnaa ay soo badiyaan oo ay dabcan ay si fiican u garab istaagaan shacabka Soomaaliyeed ee dhibaataysan sidoo kale berri waxaa jadwalka noogu jira hay-adda teedhowrka qaranka oo wasaaradda hoos tagtay iyaduna wixii tabarucaad ay ugu tala gashay hay-adda inay soo gaarsiiso haddii Ilaahay yiraahdo halkan laakiin waxaan rabaa inaan uga faa'iideysto digniinihii aan ayaantaanba wadnay ee ahaa inaan nimankaas lala shaqaynin oon waxa la siinin dabcan ninkii maanta ganacsada ah ee taga xarunta Zoobe siday u taalla arka ama soo booqda isbitaalada magaalada Muqdisho dhaawacyada jiifa iyo intay leeyihiin dhibaatada haysata waxaan u maleynayaa inuusan dib dambe ugu dhiiran doonin inuu nimankaas khawaarijta oo wax dambe siiyo waxaan rabnaa inaan ka wacyi gelino shacabka Soomaaliyeed guud ahaan iyo ganacsatada Soomaaliyeedba inaysan ku gacan siinin xasuuqa shacabka Soomaaliyeed nimankaas ay xasuuqaynaysan ku gacan siinin mar kale ay runtii soo booqdaan isbitaalada waan uga mahad celinaynaa runtii garab istaag ay hadda muujiyeen laakiin kuma filno waxaan dhahaynaa kuma filno lacagta inta ay ugu yabooheen $1 milyan kuma filno waxaan rabnaa inay ka badiyaan lacagtaas oo ay shacabka Soomaaliyeed si mug iyo miisaan u garab istaagaan haddii Ilaahay yiraahdo waxaan runtii uga mahad celinaynaa hay-adda maareeyaheedii oo si qiimo leh noogu soo dhaweeyey iyo shaqaalihiisaba waan uga mahad celinaynaa runtii waana ku garab taagannahay wixii tabarucaada iyo wixii cod dheer iyo cod gaaban baan shacabka ku gaarsiin lahayn haddaan nahay wasaaradda ilaahay idinkiisa aadan ka mahad celinaa assalaamu calaykum wasaaradda gaadiidka ayaa $26,000 ku wareejisay guddiga gurmadka qaraxyadii Soobatu faafahinta warkaasi waxaa inoo haya wariyahayaga Maxamed Ibraahim wasaaradda gaadiidka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa hay'adda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka ku wareejisay lacag gaaraysa $26,000 oo ay uga qayb qaadanayso gurmadka qaraxyadii Soobilabe wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalka Soomaaliya Fardowsi Cismaan ayaa sharaxday habka ay lacagtani u soo aruuriyeen halkan waxaa jooga wasaaraddii gaadiidka iyo duulista hawada oo runtii 3 bari la soo dhaafay si gaar ah ugu taagneyd inay mataqaanaa arrintan joojiso solidarity-geeda inaan muujino inaan rordiiq inaan la qaybsano walaalahan Soomaaliyeed oo meesha ku waxyeeloobay iyo inaan maaragtay aan shaqo galno sidii aan u raadin lahayn dakhli aan kaga qayb qaadano wasaarad ahaan saad ogtahay wasaaraddu waa qaybta gaadiidka iyo qaybta duulimaadka rayidka ah laba tiim baan u kala qaybinay 2 bari la soo dhaafay waxaan ka shaqeynaynay shaqaalaha wasaaraddii hay'addu si tabarucaad u soo aruurin lahaayeen waxaan u sameynay grading iyo scale baan u sameynay si u kala mushaar badan yihiin ayaan ugu sameynay waxaan u saarnay guddigu waa fariisteen shaxbay diyaariyeen shaqaalaha mushaaraadkoodii iyo si u kala sareeyeen gradeskoodii baa la sameeyey waxaan ku qornay sida loo kala mushaar badan yahay $10 laga bilaabo ilaa $1,000 baan waxaan ku qornay shaqaalaha in laga aruuriyo runtii 48 saac ka yar bay waxay ku soo aruuriyeen lacagaan isleeyahay weli wasaarad iyo hay'ad aruurisay ma jirto lacag waxaan wadnaa maantay $26,000 ah wasaaradda duulista iyo gaadiidka hawada ay wadaa shaqaalaheedana bas ay soo aruuriyeen cid kale aysan keenin waxaan wadnaa 20,000 oo ay soo aruurisay waxaan wadnaa 20,000 oo ay soo aruuriyeen shaqaalaha maaragtay duulista hawada hay'adda duulista hawada ay soo aruuriyeen iyo 6,000 oo ay soo aruuriyeen shaqaalaha gaadiidka 26,000 baan wadnaa runtii aad baan uga mahad celinayaa shaqaalaha si isu xilqaameen ilaa xalay ilaa shalay ilaa daraad maysan seexan waa shaqeynayeen waxaan rajaynaynaa marka intaa kaliya inaysan ku akaanina aan sii wadno tabarucaadda waxaan sidoo kale sameynay partnerska nala shaqeeya oo ganacsatada hadday ahaan lahaayeen ama airportka ka shaqeeya ayaan isugu wacnay maantay waxaan u bandhignay fundraising-kan inay qayb ka noqdaan oo ay nala gurmadaan gurmadka wasaaradda wado waa nala qaateen way socotaa tabarucaadooda 48 saacadood baa ayagana u qabanay
waxaan rajaynaynaa labada maalin oo soo socda lacagtaas inaan keenno ayadana halkaan haddii ilaah yidhaahdo marka annaga wasaarad ahaan runtii isxilqaan aysan cid kale isxilqaamin oo extra ahaan qaadnay waxaan rabnaa inaan dhiig shubno inaan shaqayno inaan lacag aruurino si walba oo naga qayb qaadan karna arrintan inaan frontline ahaano ayaan rabnaa insha allah waa soo diraynaa team in la shaqeeyo oo maaragtay halkan volunteer saacado qaasa geliya oo dhalinyaradan soo aragnay oo kaleeto haddii ilaahay yidhaahdo marka aad baan idinku mahad celinayaa shaqada aad haysaan waxaan rabnaa in mataqaanaa tiimkan waa tiimkii wasaaradda agaasimayaashii maareeyaashii ku-xigeenadii agaasimihii guud waa dhannahay wasaaradda waa dhan maamulka galmudug ayaa tababar ku saabsan ka shaqaynta nabadda u furay dhalinyarada galmudug faahfaahinta warkaas waxaa inoo haya waryahayaga Cabdifatax Xasan Durdur wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta maamulka galmudug ayaa kulan isugu keentay dhalinyaro laga soo kala xulay degmooyinka galmudug si loo tababaro ka shaqaynta nabadda iyo isu soo dhaweynta bulshada wada degan ee dariska ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka galmudug Axmed Ismaan Aadan Qooje ayaa sharxay ujeedka dhalinyarada la isugu keenay wuxuuna tilmaamay in balaarinta wakiilada nabadda oo horey ugu dhisnaa Dhuusamareeb Cadaado iyo Caabudwaaq ay u horseedayso galmudug in ay noqoto deegaan nabdoon oo dadkeedu ay isu dhow yihiin marka aan loo ololayn nabadda oo aan laga qayb qaadanin nabad iyo lama helayo iyo isdhexgal marka waxaa la idinka rabaa inaad nabadda wax uga ololeydaan ka qayb qaadataan ummadda wacyigelin badan u samaysaan si wixii halkaana la idinkugu sharxi doonaa qaabkaad uga qayb qaadan lahaydeen ee ummadda aad iskugu keeni lahaydeen ee aad nabadda ugu ololeyn lahaydeen awal degmooyinka kaliya laga keeni jiray tiimamka hadda macaatuulooyinka in laga keeno deegaanada dhan laga soo aruuriyo dadku si ay bulshada ula wadaagaan wixii loo sheego oo loo sharaxo la baro inay ummadda kula laabtaan wasaaradda lacagta ee dalka Mareykanka ayaa cunaqabatayn saartay xubno ka tirsan ururka Daacish ee Soomaaliya faahfaahinta warkaas waxaa inoo haya waryahayaga Maxamed Ibraahim wasaaradda lacagta ee dalka Mareykanka ayaa cunaqabatayn saartay xubno ka tirsan ururka Daacish ee Soomaaliya oo lagu eedeeyay inay ku lug leeyihiin iibka hubka ee bariga Afrika sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters shakhsiyaadka cunaqabataynta la saaray waxaa ku jira Cabdiraxmaan Maxamed Cumar oo lagu eedeeyay inuu xubin ka yahay Daacish ee Soomaaliya iyo inuu yahay xubinta ugu firfircoon ee laga soo bilaabo 2020kii hubka sharci darrada ah ka soo dejiyay Puntland sida ay qortay Reuters waxaa sidoo kale cunaqabataynta la saaray Ciise Maxamuud Yuusuf oo lagu eedeeyay inuu hubka iyo saadka u fududeeyay Al-Shabaab isla markaana uu soo geliyay Puntland hubba waxaa sidoo kale cunaqabataynta la saaray Cabdiraxmaan Faahiye oo lagu sheegay inuu yahay amiirka Daacish ee Soomaaliya iyo Maxamed Axmed Qaaciye oo la sheegay inuu yahay madaxa amniyaadka Mareykanka ayaa sanadkii 2018 liiska ururada argagixisada ku daray ururka Daacish ee Soomaaliya gudoomiyaha hay'adda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka ayaa dawladda ka codsaday in la kordhiyo goobaha gurmadka degdega gudoomiyaha hay'adda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka Maxamuud Macalin ayaa sheegay in qolalka xaaladda degdega ee isbitaalada ay buux dhaafiyeen dhaawacyadii qaraxyadii soo batuu gudoomiyaha ayaa dawladda ka codsaday in loo baahan yahay qolal dheeraad ah wasaaradda gaadiidka dowladda hawada wasiirka iyo agaasimaha dowladda hawada rayidka ah agaasimaha guud ee wasaaradda shaqaalaha agaasimayaasha kulli waxaan aad iyo aad idinkaga mahad celinaynaa runtii gurmadkan aysan jirinin wasaarad ama hay-ad kale oo soo gaarsiisay ilaa hadda sanduuqan gurmadkii loogu magac diray gurmadkii Zoobe 2 ama 29 Oktoobar ee Zoobe runtii waxaad ogtihiin hadda kaliya maadan imaanina dhiig shubitaankii tiiman badan oo idinkiina ka socda noo yimaday oo dhiigga shubay mudane wasiir dhibka jiro iyo culeyska jiro aad buu u badan yahay maalin kastana masiibadan way jirtaa oo ilaahay hanaga cinsha laakiin arxaamulaawayaal runtii ku talagalay inay dadkan Soomaaliyeed dhibaateeyaan ayaa meesha joogo waxaan rabnaa in oo la idinku daysado maxaa yeelay waxaa dhibaato ka taagan tahay isbitaaladii oo buux dhaafay waxaa dhibaato ka taagan tahay dhiiggii oo runtii aan la aruuri karin oo
qofkii waa in dhiigga laga qaado isla markii qofka lagu shubo maxaa yeele bangi dhiig ma jiro. waxaa dhibaato ka taagan tahay gaadiidkii iyo ambalaasyadii oo runtii isbitaaladii ay ku yar yihiin. waxay dhibaato ka taagan tahay emergencygii oo mataqaanaa waxuu ahay isbitaaladii qolalkii emergencyga waa buux dhaafeen, waxay u baahan yihiin qolalka dheeri ah. waxaa kaloo u baahannaha dadkii dhib ku gaaray oo mataqaanaa masaakiinta ahaa oo miisaska ay wax u saaraayeen oo guryihii lagu dumiyey oo wixii ka waxeeyeen. waad dareemi kartaa haddii ay mataqaanaa dhimatay ilaa iyo 120 ka badan ay dhimatay in mise 120kaasi ku dul nooleeda oo mataqaanaa waxay gadaashooda ka waxaynaysa. waxaad dareemi kartaa dadka dhaawac ahoo xubnahooda ku waayey oo jijiifo. arrintaani arrin aad u weyn waaye, waana ku mahadsantihiin. lacag aad u weynaad keenteen, gurmad aad u weynaa muujiseen. runtii dhaqaalahan hay-adda lagu aruurinaya hadda waxaan rabnaa in guddi loo saaro oo ganacsatada, culimada, bulshada rayidka ka kooban. arrintaas oo runtii prime ministerka uu mataqaanaa ku tala jiro inuu mataqaanaa guddi ka shaqeeyo oo baahiyada jiraahay xoolaha la aruuriyey oo runtii aad dhinacyo badan uga qayb qaadateen. waan ogahayo dowladdu $1 milyan ay ku deeqday. halkaas milyan qaybaa ka tihiin. haddana inaad shaqaalihii mar labaad lacagta intaa la eg oo 30 ku sii dhow 26 soo maaha. runtii waa runtii mushaar golaha wasiirada oo runtii aad bixisaan. marka wasaaraddan runtii waxaan ognahay hay-addu intay xatee ku jirtay abaarta oo arrintaani ka horeysay oo runtii abaar xoogana dalka ka jirto iyo baahidii hay-addu waynala gurmanaysay ama diyaaradihii ha naqato ama gaadiidkii kale ha naqato ama runtii fududayntii ha naqato. marka aad iyo aad u mahadsantihiin. wasaaraddu waa wasaarad runtii wadnihii dowladnimada ah, waana muujiseen. aad u mahadsantihiin macali wasiir. dowladaha Turkiga iyo Djibouti ayaa gurmad caafimaad u soo diray magaalada Muqdisho. faafahinta warkaas waxaa inoo haya wariyahayaga Maxamed Ibrahim. waxaa lagu wadaa maanta oo Arbaca in magaalada Muqdisho ay gurmad caafimaad oo kala duwan soo gaarsiiyaan dowladaha Djibouti iyo Turkiga oo kamid ah dowladaha taageera Soomaaliya. wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in shalay qorshuhu ahaa in dowladda Turkiga ay Muqdisho u soo dirtay diyaarad qaadi lahayd 4 qof oo qaba dhaawac culus balse ay baaqatay hawada Itoobiya oo xumaatay hawadeed. ha yeeshee maanta ay imaanaysa diyaaraddaasi isla markaana ay qaadi doonto 4 ka mid ah dadkii ku dhaawacmay qaraxyadii Soobeetu. dhinaca kale waxaa xafiiska ra'iisul wasaaraha Djibouti lagu qabtay kulan la xiriira sidii kaalmo caafimaad iyo gurmad loogu fidin lahaa dadka ku dhaawacmay weerarkii isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho. kulanka ayaa lagu go'aamiyay in maanta Arbaca ah gargaar loo diro Soomaaliya sida uu sheegay ra'iisul wasaaraha Djibouti iyaga oo ka jawaabaya codsigii dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. iminkana akhbaaraadka dibadda. Kuuriyada Waqooyi iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa markii ugu horeysay isku adeegsaday gantaalo. Kuuriyada Waqooyi iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa markii ugu horeysay isu adeegsaday gantaalo iyaga oo la beegsaday xeebaha labada dal. Seoul ayaa ka jawaabtay Arbacadii 3 saacadood kadib markii Pyongyang ay riday gantaal ku dhacay meel 60 kiiloomitir 37 mayl u jirta magaalada koonfurta ee Sokcho. militariga Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in tani ay tahay waxaan la aqbali karin oo lagu xadgudbay dhulkooda. koonfurta waxa ay riday 3 gantaal oo cirka iyo dhulka ah iyada oo ka jawaabaysa kuwaas ay saraakiishu sheegeen inay ku dhaceen masaafo la mid ah qadka waqooyi. Kuuriyada Waqooyi ayaa maanta ugu yaraan 10 gantaal ku riday dhanka bari iyo dhinaca galbeed sida ay sheegeen saraakiisha Kuuriyada Koonfureed. waxay arrintan ku soo beegmaysaa maalin kadib markii Kuuriyada Waqooyi ay ugu hanjabtay Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed dhoolatuskooda militari ee wadajirka ahaa iyadoo sheegtay in Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed wajihi doonaan caqabado xun ay nala kulmi doonaan natiijada ugu xumeyd taariikhda. waxaa jira walaac laga qabo in hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un uu diyaar garow ugu jiro tijaabadii ugu horeysay ee hubka nukliyeerka ah. Sacuudiga ayaa Mareykanka la wadaagay xogta weerar ku soo wajahan. Mareykanka ayaa ka walaacsan hanjabaadaha Iiraan ee ka dhanka Sacuudiga. afhayeen u hadlay aqalka cad ayaa sheegay in Mareykanka uusan ka labalabeyn doonin in uu ka jawaabo hanjabaadahaas haddii loo baahdo. wargeyska Wall Street Journal ayaa sheegay in Sacuudiga uu la wadaagay xog sir ah oo Mareykanka uga digayo weerar ka yimaaday Iiraan oo lagu bartilmaameedsado boqortooyada Sacuudiga. Mareykanka ayaa sheegay in Iiraan ay siisay Ruushka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo adeegsado dagaalka ka dhanka Ukraine,
taasoo keentay in Washington ay dhinac iska dhigto dadaalada lagu doonayo in dib loogu soo nooleeyo heshiiskii nukliyeerka Iran kaasoo madaxweyne Donald Trump ka baxay 2018. madaxweyne Joe Biden ayaa toddobaadyadii la soo dhaafay khilaaf xoogan kala dhaxeeyay Sacuudiga kadib markii ururka OPEC Plus ee Sacuudiga hogaamiya ay go'aansadeen in ay dhimaan wax soo saarka shidaalka. waa tahay daawadayaal kuwaasi waxay ahaayeen war wixii gudaha iyo daafaha caalamka inaga soo gaaray anigoo saada idin akhrinayay inta warcaynkan oo kala ku kulmeen waxa idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.